maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug ayaa dawladda Soomaaliya u gudbiyay cabasho kale oo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Soomaaliya mudane Mahad Cabdalle Cawad madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyri ayaa ay ka dalbadeen in wax laga qabto xadgudub ay sheegeen in ay kala kulmeen gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Soomaaliya mudane Mahad Cabdalle Cawad ugu horeyn waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug iyadoo sidoo kale ay goobta ka hadleen bulshadii kulanka ka soo qayb galay shirkeena jiray wuxuu ku saabsan yahay cabasho hadda ka hor aan miidiyaha gelinay oo uu hortaagay mudane Mahad Cabdalle Cawad ninkaas aad u jeedo meeshaas sawirkiisu ku yaalo markii aan isku daynay dulmi badan oo nagu sameeyay inaan ka cabanno oo aan u sheegno madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda kale wuxuu isku dayay cuburintii awal uu nagu hayi jiray 20 sano uu nagu hayay inuu macna cuburintii uu sii siyaadiyay asagoo u adeegsaday inuu idaacadihii annagu aan ku duubanay cabashadeena inuu hor istaago oo waliba u adeegsaday lacag iyo awood oo uu yiri ma gudbi kartiin wixii aad ka soo duubteen dadkii cabanayay ka cabanayna marka cuburinta ونوها hayo mudane Mahad Cabdalle Cawad gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka yaan ka cabanayna shirkeenan jaraa'id sidaas ku saabsan yahay muddo hadda 3 bari laga joogo yaan qabanay sabab uu leeyahay baa hadda galabta u qaban sababtaas oo ah in uu asagu hor istaagay wixii aan ku cabanaynay oo uga cabanaynay waxyaabaha faragelinta ah oo uu nagu hayo Mahad Cabdalle Cawad uma dhalan galguduud iyo mudug wax qaybina galama dhaxaydo waxyaabaha uu annaga nagu hayo waxa u sababa in uu nagu hayo waxa u sababa in aanan meesha uu joogo kuraasta uu joogo annaga wax ku leh oo 20 sano uu magaceena iyo mansibkeena uu sheeganayo oo aanan aqoon xataa asaga aragiisa inaan sawirkiisa aragna ma ahane uu san wargiis deegaamada aan ku noolnahay degmada Bacadweyne iyo deegaamada hoosiga uu san imaanin arrimaha annaga yaani masiiriga noo ah haday dhaqan tahay haddii ay tahay annaga waxa weeye deegaan doorashada uu yiri degmada Xaraala la geynayaa deegaan doorashada degmada Bacadweyne ma qaadan karto oo uu ku yiri dawladda federaalka waxaan rabnaa warkaasi annaga beenaynayna deegaan doorasho ma ahna degmaan annagu nahay walaalahan iyo isku kana dirin degmada Xaraale degmo weeye jirta oo la yaqaano oo sax ah deegaan doorasho ma ahna degmo doorasho leedahay xaq u leedahay annaguna degmo doorasho xaq u leedahay ka cawanaya ninkaas Mahad Cabdalle Cawad waxa weeye dadka aan isku soo faymo banaana inaan la dhexdhexaadiyo banaan wixii haystaan si cadaalad lagu kala banaan waxa weeye qoran la caburiyo qoran cod kale si daayo banaana waxa uu sheegayna oo ka codsanayna arrimahaas walaalkeen ka dhaxbo assalaamu calaykum anigoo ah magacayga la yiraahdo Cismaan Maxamed Maxamed kuna magac dheer Cismaan Dheere ahna afayeenka ururka dhalinyarada degmada Bacadweyne waxaan ka cabanaynaa Mahad Cabdalle Cawad oo si khaldan noogu soo xadgudbay codadkii aan daraata duubnay meeshaan ka duubnay jimcadii u adeegsaday buteeri dawladnimo oo awal aan ku gaarsiinaa anaku meesha dawladda uu ka joogo waxa alla ka tabay maantay in ninkaas uu nagu xadgudbay oo macal codadka cabashadeena xitaa la soo ma dawladda loo gudbi diiday waxaan ka codsanaynaa dawladda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa cabashadeena in la aqbalo ninkaas ayaan ka cabanaynaa walaalkeen waxaan rabnaa inuu asagoo isku qayb maahin isku qaran maahin isku deegaan maahin isma naqaan asagoo nama yaqaan annagu ma naqaan inuu ninkaasi faragelinta naga daayo baan ka rabnaa ka codsanaynaa haddii asagoo uu naga daayo degan waayo waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in la ka qabto ninka qaladkiisa oo aan ku sii day waxaan codsanaynaa inta shaqada ku leh oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka madaxda yahay iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha shacabka iyo dhammaan inta shaqada ku leh ninkaas inay naga qabtaan oo ay ogaadaan hoos u ogaadaan inuu shaqo ku lahayn waa nin yiri jaganimu salahayn ninka yiri ninkaasa iska leh geela caloosha laga raro nin yiri weeye dawladdu yay aqbalin geela caloosha laga raro
ninkaas waxaan codsanaynaa in nala ka qabto waxaana suldaan ah maanta xuseen maxamed aadan ayaa maanta suldaan ah waxaan ka cabanayaa oo ku hadlaaya dumarka Bacadweyne degmada Bacadweyne ana oo ku hadlaaya keenteeda aan ku hadlaaya waxaan ka cabaaya Mahad Cabdalle Cawad aan ka cabanay nugu dal maahan nugu deegaan maahan nugu dal maahan nugu wadan maahan degmada Bacadweyne faragelinta uu soo galiyay ayaan ka cabanayaa in nala ka qabto siday u sheegeen adeerayaasheen iga horeeyay ayaan ka cabanay ninkaas dulmigu nagu sameeyay suldaamadeena hore oo abaagi soo jiray oo waligood jiray oo hadda jira oo Xuseen Maxamed u dambeeyo in nala ka qabto aan u sheegay ummadda Soomaaliyeed oo taqaanay oo ilaa soo abaadan soo socotay hadda faragelin ku sameeyay maalmihii ugu dambeeyay ayay soo tireysay cabashada maamulka iyo bulshada ku dhaqan degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug iyagoona sheegay inay xadgudub kala kulmeen sida ay sheegeen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalle Cawad ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Soomaaliya Mahad Cabdalle Cawad Cabdiweli Bilaa Galmudug TV